dagaal beeleed lagu dilay dad Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan ayaa ka soconaya qaybo kamid ah gobolada dalka gaar ahaan gobolka Sanaag ee Soomaaliya waxaana dagaalkaasi uu salka ku hayaa dhul balaarsi maalinta tobnaad bisha barakeysan ee Ramadaan dagaalkan oo ay dad shacab ah oo aan waxba galabsan ku geeyeen ayaa halkaasi ka soconaya waxaana ilaa ay hadda dadkaasi loo dilaya maxaad reer hebel u tihiin dhul balaarsi iyo wax aan dhameyn in nafta qofka muslimka ah loo gooyo iyadoo lagu jiro mid kamid ah bilaha xurmada leh gaar ahaan bisha barakeysan ee Ramadaan laba beelood oo walaalo ah ayaa dagaal waxa uu ku dhex maraya dooxada Dureera oo ah inta u dhaxaysa deegaanka Damalaxagare iyo Dawco ee gobolka Sanaag ee maamulka SSC Khaatumo sida ay wararka halkaas ka imaanaya ay xaqiijinayaan dadka deegaanka ayaa dagaalkani waxa ay sheegeen inuu salka ku hayo ismaandhaaf dhul balaarsi la xiriira ama dhul daaqsimeed waxaana dhulka la isku hayo uu yahay aaga Dureera waxaana ka dhashay dagaalkan khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ugu yaraan waxaa la sheegay inay geeriyoodeen dad gaaraya 4 ruux tira intaasi ka badanna ay dhaawacmeen dagaalkana ilaa iyo hadda uu socdo sida la xaqiijiyay Sanaag oo kaliya kama socdo dagaal beeleedka ee Soomaaliya qaybo kale oo kamid ah ayuu ka dhacaya waxaana kamid ah qaybo ka tirsan gobolka Mudug oo la isku hayo dhul balaarsi noocan oo kala ah xilliyada jilaalka ah ama abaaruhu ay dhacaan Soomaalidu ma dagaalamaan gugay ama barwaaqo sooranka iyo xilliyada deyrta ah ay dhul daaqsimeed iyo soo kale ceelbiyood wax la mid isku qabtaan iyadoo oo dhowr iyo 30 sano arrinkaasi xal loo leeyahay dhibaatada ugu weyn waa wacyiga bulshada oo hooseeyo iyo culimada oo doorkooda gabaysan rumaysan yahay iyo dawladdu aan xil weyn iska saarin ee siyaasadaha kale ee gudaha iyo dibadda ku mashquulsan ama ku mashquulshaba sida markaasi dadka dhaqanka ah ay wariyeen hadda dagaalkan ka socdo Sanaag 4 qof ayaa lagu dilay iyadoo lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan maalintii afraad ee bishan Ramadaan ee toddobaadkii hore waxaan sidoo kale baahinay dagaal beeleed ka dhacay qaybo ka tirsan maamulka Galmudug gaar ahaan aaga Mudug koonfurteeda si kastaba ha ahaatee dagaaladan wali xal looma helin waxaana la isdilayaa bilaha Ilaahay xurmeeyay ee markaasi iyadoo dhiig qofka muslimka ah caadiyan oo san xalaal ahayn in la daadiyo haddana bishan barakeysan oo ah bil cibaado waxay ahayd in dadka markaasi ay uga faa'iideystaan acmaashooda wanaagsan laakiin wali Soomaalidu way isdilayaan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ee maamulada markaasi meelaha lagu dagaalamayo ay hoos tagaan ilaa ay hadda tallaabo muuqatama aysan qaadin iyadoo odayaasha dhaqanka sidoo kale siyaasiyiinta iyo culimada diinkaba lagu eedeynayo in ay ka gaabiyaan dhaxdhaxaadinta ama inay kala dhaxgalaan beelaha walaalaha ah ka hor inta aan la gaarin bisha barakeysan ee Ramadaan dagaal beeleed badan ayaa dalka ka dhacay hadii ay noqon lahayd gobolka Hiiraan Shabeellaha Dhexe qaybo kamid ah sidoo kale Qoryooli deegaano hoostaga waxa ka dhacay dagaal beeleedyo Mudug iyo Galgaduud iyaduna waa meelaha ugu badan ee dagaal beeleedyadu ka dhacaan halka hadda xusid ay mudan tahay in qaybo ka tirsan gobolka Sool ay ku dagaalamayaan maamulada Somaliland iyo SSC Khaatumo ay ku dhimanayaan dad Soomaaliyeed oo muslimiin oo iyaguna waxba galabsan isla markaana u dagaalamayo qadiyad aan gaarsiisnayn in qof bili aadan nafta laga gooyo sida la rumaysan yahay wax walba oo ka soo kordho dagaaladan hadda ka soconaya Dureera aageeda ilaa iyo soo kale deegaanka Dawco halkan in kugu soo gudbin doonaa